marka u horeysa ilaahay baa subxaanahu watacaala ay u sugnaatay mahadnaq iyo sharaf waxaan mar labaad anigoo ku hadlaya afka xisbiga talada dalka haya ee kulmiye aan halkan uga mahadnaqayaa isla mar ahaantaasina aan bogaadinayaa guud ahaan shacbiga jamhuuriyadda Somaliland oo 22kii bishii koobaad 2022 oo shalay ahayd iskugu soo baxay dhammaan fagaarayaasha waaweyn ee gobolada dalka jamhuuriyadda Somaliland kulamadaasi iyo isku soo baxyadaasi oo si xiriirana ilaa saaka uga socday gobolada qaarkood oo si weyn dadku isku abaabuleen marka u horeysa shacbiga jamhuuriyadda Somaliland waanu ku tahniyadeynaynaa dareenkoogii qarannimada lahaa ee xambaarsanaa sida ay uga go'an tahay in qarankan jamhuuriyadda Somaliland ee muddada dheer ku naaloonaya madax banaanida iyo dawladnimada taabada gashay in ay beesha caalamka iyaguna codkooga ku biiriyaan in waxa weeye xaqi ay ku lahaayeen inay ictiraaf caalami helaan waxa kale oo shacbiga jamhuuriyadda Somaliland ay fariintaasi shalay ilaa maanta ay gudbinayeen ee xambaarsanayd isla mar ahaantaasina ay ku taageerayeen baarlamaanka dalka UK oo waxa weeye dood ka galay qiimo leh oo kuna soo bandhigay halkaasi muddada 30 sano ah qaranka jamhuuriyadda Somaliland wixii u qabsoomay in beesha caalamku iyo adduunyada ay garowshiye ka bixiso annaguna xisbi ahaan waanu tahniyadeynaynaa waxaana leenahay shacbiga reer Somaliland waxa qarankani halka ku soo gaaray waa isku duubnaantiina iyo midnimadiina iyo sida aad uga midaysan tihiin qarankiina jamhuuriyadda Somaliland inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala taabageliyo ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ina gaarsiiyo inaga oo dalkan ictiraaf helay isla mar ahaantaasina beesha caalamka uu ka mid yahay waxaa runtii aan maanta rabaa inaan kalimaad kooban aan ka iraahdo iyadoo wax cusub aanu sheegin isla mar ahaantaasina wax awalba caado u ahayd inuu ka hadlo oo aan ahayn wax cusub uu sheegay shalay toole xirsi cali xaaji xasan oo ku hadlay magaca xisbiga wadani waxaan marka u horeysa shacbiga reer Somaliland u sheegaya isla mar ahaantaasina iyaga laftirkooduba ay garowshiye ka bixiyeen haddii dib aad u daawato baraha bulshada iyo social media ay maanta umadu sida fudud ugu xiriirdo sida uga dareen celiyeen wixii shalay toole Somaliland guud ahaan ka dhacay ee qarannimada lahaa iyo shirkaagii jaraa'id ee ahaa in aad waxa weeye arrimahaasi ku khalkhal geliso isla mar ahaantaasina aad ku fashisho balse ay waxa weeye ku socon waayay in shacbiga reer jamhuuriyadda Somaliland ay aad iyo aad ula yaabeen waxa aad qabatay shalay shir jaraa'id oo aad kaga hadlayso waxyaalaad badan oo isdhex yaalay oo awalba maalmihii u dambeeyay si xiriir aad uga hadlaysay waxaad ka hadashay xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland iyo talada dalka ay haysay wuxuu u qabsoomay mar rabo inaan dul istaago waxaasi aad ka hadashay iyo wax la mid ah balse waxaan shacbiga reer Somaliland aan rabaa inaan la wadaago shalay oo ahayd maalin shacbiga reer Somaliland ku weyn yar iyo weyn rag iyo haween guda iyo dibad meel kasta oo ay joogaan waxa shalay reer Somaliland ay isku dareen ka ahaayeen inay muujiyaan qarannimadooda muddada dheer iyo dawladnimadeeda ay ku faaniyeen qofkii aan nasiib u helin inuu fagaarayaasha jamhuuriyadda Somaliland ka qayb galaana uu dareenkiisa ku cabirayo ku muujinayay baraha bulshada ee maanta sida sahalka ah adduunyada ugu wada xiriidho taasoo shalay Somaliland uga duwaneyd maalmo fara badan oo ay waxa weey soo mareen waxa ayaan darro ah inaad shacbiga reer Somaliland aad ka xishoon weyday oo aad la soo hor istaagtay inaad dhaawacdo qarannimadooda iyo niyad wanaagooga iyo midnimadooda ay iskugu soo baxeen ay halka mid ay shalay ay ku ahaayeen xirsi waxaan shacbiga reer Somaliland way xasuusan yihiin aan mar labaad xasuusinaya in uu dalkan 3 xil ka qabtay 3 xil laba kamida waxa uu magacaabay xisbiga kulmiye oo marna dawladnimada hayay marna xisbi mucaarada ah xilkii koobaad waxa uu ahaa inuu xisbiga kulmiye uga u matalo guddigii doorashooyinka qaranka ee waqtigaasi doorashadii
2010 dhacday guddidii ka horeysay inuu ka mid ahaa oo xisbiga kulmiye u xushay waxaa xusid mudan in xilkaasi aad goor aan hadhna ahayn habeenna aan ahayn aad iska casishay isla mar ahaantaasina shacbiga iyo xukuumaddii markaa jirtay daahir riyaal ay ku war heleen adiga oo bariga burco jooga oo 3 seeraf kurka ka jaray oo waxa weeye halkaasi ku hubaysan hub isla mar ahaantaasina ciidamadii nabadgelyadu ay ka xil guteen oo ay ku soo qabteen adigoo gacanta ku sita bambo kuna jeeray qaaran qori iyo bastoolad waa lagu xidhay oo xukuumaddii waqtigaa jirtay waxay ka xil gudatay oo xabsiga lagu dhigay hay-adaha garsoorkana lagu horgeeyay kadibna damaanad ayaa lagu soo daayay markii xisbiga talada dalka haya ee kulmiye uu dawladnimadii koobaad qabtay waxa uu Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo ku magacaabay ilaahay ha sharfa madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland cimrigiisana allaha dheereeye wasiirkii wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland xilkaasi oo sidii ku caadada iyo fudaydka ahaydna aad isagana maalin cad aad banaysay isla mar ahaantaasina aad ka haysatay rag sida aad sheegtay aad tiri aniga ayaa ka haystay oo ay u eekayd ama ay ahaydba inqilaab dhicisoobay oo waxa weeye aragnimada iyo khibrad yaraanta ana dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladnimadiisa aad ka haysato oo aad u haysatay in wax badan ay dhacayaan ama ay dumayaan aad ku fikiraysay balse ay dhacday in madaxweynihii waqtigaasi joogay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo uu si toos ah uga xil gutay kuraastii cid inaga haboon oo qarannimada Soomaaliland ku weyntayna oo hanatana loo magacaabay xilkii saddexaad waxa uu ahaa xilka gudoomiyenimada xisbiga wadani adigoo yiri waxaan xisbiga wadani u soo galay in aan qaato gudoomiyenimada xisbiga oo taana ay maanta ay tahay taad waxa weeye qof mas'uul ah ama gudoomiye xisbi qaran oo jamhuuriyadda Soomaaliland wax uu ku hadlo aanad ku hadlaynin isla mar ahaantaasina ay tahay wax aad iyo aad looga yaaqsoodo hadallada bariyahan u dambeeyay ka soo burqanayay waxay isweydiinta shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay markaan ka soo sheekeeyay xilalka iyo sidii salfudeydka ahayd ee aad uga insaxaabtayba goorma ayuu xirsi sidii caadada u ahayd uu ka tagi doonaa gudoomiyenimada xisbiga wadani iyadoo maalmahan qaarkoodna dadka qaarkood ay sheegayeen inaad la wadaagtay maadaama ururadii la furayo kana ma iska casilaa oo urur ma furtaa waxaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegayaa oo la wadaagayaa arrimaha uu shalay ka hadlay waxa kamid ahayd doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland doorasho madaxtooyo inay dalkan ka dhacdo xukuumadda uu maanta hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga talada haya Soomaaliland ee kulmiyaba waxa ka go'an inay waqtigeedii ay ku dhacdo waxa xusid mudan doorashooyinka aad ka soo sheekaysay ee aad tiri waxa weey dib u dhac ayuu xisbiga kulmiye ku keenay xisbiga kulmiye waa xisbiga dalkan ka qabtay 2021 May doorashooyinku isku sidkanaa oo qabsoomi lahaa markii madaxweynaha talada dalka maanta haya uu qabtay talada dalka 4 bilood kadib 2 sano cidii hortaagnay inuu xisbiga wadani ahaa oo dacwad aan sharciga waafaqsanayn ka keenay guddigii waqtiga joogtay guddiga doorashooyinka markii muddo xiliyoodkoogii dastuuriga ahaa dhamaysteena doorashooyinkii sidiiba ku qabsoomeen hadday doorasho cid hor istaagayso idinka ayaa dalkan ka hortaagnaa xukuumadda maanta mar labaad ka dhalatay xisbiga kulmiye ee madaxweyne Biixina waxay dalkan ka qabatay doorashooyin muddo dhaafay oo waqtigii uu talada dalkan hayay madaxweyne Biixi ka horeeyay oo hadday golo deegaan tahay iyo hadday golo wakiil tahayba uu madaxweynuhu bixiyay tamaanta beesha caalamka adduunyada ku majiiranayso iyo munaasabadaha qarankeed maalin walba hagardaameynayso ay ku qabsoomeen adduunyadu maanta ku hambalyeynayso ay ka mid tahay waxa kale oo hadalkaaga ku jirtay inaad shalay soo qaadatay aayad quraanka kariimka ah oo suuratu al-imraan ku jirta waxa runtii xusid mudan quraanka kariimka ah ilaahay subhanahu wa ta'ala wa kalaamkiisi ama waa hadalkiisi wuxuu adduunka iyo maanta adoomadiisa jooga adduunka korkiisa uu ka mudan yahay xurmo iyo sarreysiin waxana ilaahay wax laga magan gala ah inaad aayad quraana
oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwuu ku soo dejiyey iyo kuwuu kaga hadlayey aad tafsiirkeega aad qaladay waxaanse kuu sheegaya aayaddaasi iyo munaafiqiinta ay tilmaamayso iyo kuwa ku faraxsan waxayna samaynaynay tilmaamayso inka koobaad ee ku sifoobay aad tahay waxay tilmaamaysaa in kuwa markay wax khiyaamaan ama ummadda wax u sheegaan ku faraxsan waxay sameeyeen waxaan ka soo sheekeeyey tallaabooyinkii aad qaaday ee xisbiga kulmiya kugu aaminay ee madaxweyne siiraaye kugu aaminay ee intaba aad khiyaamaysay ee intaba markii dambe aad ku faraxday miyana aayaddaasi ku haysan bal dib isku daawo waxaanay noo garsoori doonaa mashaayikhda dalka oo tafsiirkeega eegi doona bal cidda ay koobaad ay tilmaamayso kuwa maanta dalkan laga hortaagan yahay waxa ay ku fikirayaanna somaliland iyo meel lamida aanay ka suurtagelaynin ee takfiiriga ah waxaanse kuu sheegaynaa adiga iyo kuwa kula midkaaba dalkan somaliland in lagaa qaban doono waa lagaa qabanayaa maalin ayoomin min alayaam xirsoo ku talagal in lagaa qaban doono ood sharciga aad hor istaagi doonto waa lala socdaa waxa aad ku fikirayso iyo waxa aad ku waxa weeye taamaysaba hadday tahay somaliland madaxdeeda iyo adduunyada hadday tahayba waxaad ka qoran tahay waad ogta waxaan shacbiga jamhuuriyadda somaliland guud ahaan aan halkan maanta uga gudbinayaa lana wadaagayaa iyaga oo shacbiga jamhuuriyadda somaliland ay yihiin maanta dad ilbax ah qarankooga somaliland iyo wuxuu usoo qabsoomay ka dharagsan aanu qaldi karin qof ujeedooyin gaara leh oo kursi ku cararayay in doorashooyinka jamhuuriyadda somaliland ee kala duwan ay noogu qabsoomayaan siday u kala horeeyaan qaanuunka dalkuna u waajibinayo maanta waxa shacbiga jamhuuriyadda somaliland uu la socdaa in muddaxileedkii saddexda xisbi qaran ee muddaysnaa 10 sanaba hal mar in la furo sida waxa weeye aynu marar badanba ee saddexda xisbi qaran dalkan halkaa ku soo gaadheen in waqti koobani uu ka hadhay waxaan shacbiga jamhuuriyadda somaliland la wadaagayaa iyadoo ixtiraamayno xisbi ahaan aanaan gudagelayna waxa weeye qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahaa ee ka soo baxay in saddexda xisbi qaran ee maanta dalka jooga ee kulmiye iyo ucid iyo wadani iyo waqtiga qaanuunku furaya ururada la furo ee inay u borotamaan u ordaan qaanuunku waajibiyo saddexda xisbi qaran ee ka soo baxa ayaa u tartami doona doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland taana shacbiga jamhuuriyadda somaliland ee sida indhala-aanta uu shalay xirsi rabay inuu umajara habaabiyo ayaan iyagana u sheegayaa baaqii shalay iyo maanta istabajooga ahaa ee shacbiga jamhuuriyadda somaliland ay dareenkooga ku muujinayeen haddaad tihiin xisbiga wadani wax allaaliya waxaad ku darsateeni ma jirto balse waxa ayaan darro weyn ah inaad ka xishoon weydaan dareenkoogii iyo qarannimadoodii iyo siday adduunyada ugu muujinayeen inaad ka khalkhalgelisaan oo adiguna shalay toole aad shir jaraa'id ka qabatay fariin kalena aad u dhiibtay afayeenkaagii xisbiga oo shacbiga jamhuuriyadda iyo caasimadda ku dhaqan si uga soo khalkhalgeliyo uu fagaaraha khayriyadda ugaga cataabay fariimihii aad soo fartay balse waxaan dil iyo sharaf darre aan ahayn oo aad ka qaadeenna ma jirto intii shalay shacbiga jamhuuriyadda somaliland hadday halkaa ku sugnaayeen iyo hadday baraha bulshada fikirkoogii qarannimada xambaarsanay inigu jawaabayeen haddaad dib u eegtaan intaasi ayaa inigaga filan waxaan shacbiga jamhuuriyadda somaliland gees ilaa gees ku bogaadinayaa sida ay mar kaste u difaacanayaan qarannimadooda iyo wada jirkooga iyo wada joogooga dalka jamhuuriyadda somaliland waxa aad kelmada ka tiri marka madaxweynuhu khudbadaha uu ka jeedinayo goobaha uu waxa weeye ama munaasibaadka qaran ama meelaha uu booqdo madaxweynuhu kelmadaha uu ka yidhaahdo inaad shalay toole iyadana ereyo gaf ah oo qof mas-uulah oo xil guddoomiye xisbi haya uu ku hadlana aanad shalay toole ku hadlaynin waxaan kuu sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland inuu yahay madaxweyne cabqariya waaye araga siyaasiya isla mar ahaantaasina yaqaana goob kasta iyo fagaaro kasta hadalka yaalla ee kaga habboon xaasha halkan nidaam iyo brotocool iyo haybad dowladnimo ayaa taalla taana intaas
ayaan ka oran lahaa. aad iyo aad baad umahadsantihi. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. marka u horeysa ilaahay baa subxaanahu watacaala ay u sugnaatay mahadnaq iyo sharaf. waxaan mar labaad anigoo ku hadlaya afka xisbiga talada dalka haya ee kulmiye aan halkan uga mahadnaqayaa, isla mar ahaantaasina aan bogaadinayaa guud ahaan shacbiga jamhuuriyadda somalilan oo 22kii bishii koobaad 2022 oo shalay ahayd iskugu soo baxay dhammaan fagaarayaasha waaweyn ee gobolada dalka jamhuuriyadda somalilan. kulamadaasi iyo isku soo baxyadaasi oo si xidhiidhana ilaa saaka uga socday gobolada qaarkood oo si weyn dadku isku abaabuleen. marka u horeysa shacbiga jamhuuriyadda somalilan waanu ku tahniyadaynaynaa dareenkoogii qarannimada lahaa ee xambaarsanaa sida ay uga go-an tahay in qarankan jamhuuriyadda somalilan ee muddada dheer ku naaloonaya madax banaanida iyo dowladnimada taabada gashay in ay beesha caalamka iyaguna codkooga ku biiriyaan in waxa weeye xaqii ay ku lahaayeen inay ictiraaf caalami helaan. waxaa kaloo shacbiga jamhuuriyadda somalilan ay fariintaasi shalay ilaa maanta ay gudbinayeen ee xambaarsanayd, isla mar ahaantaasina ay ku taageerayeen baarlamaanka dalka UK oo waxa weeye dood ka galay qiimo leh oo kuna soo bandhigay halkaasi muddada 30 sano ah qaranka jamhuuriyadda somalilan wixii u qabsoomay in beesha caalamku iyo adduunyada ay garowshiya ka bixiso. annaguna xisbi ahaan waanu tahniyadaynaynaa, waxaana leenahay shacbiga reer somalilan waxa qarankani halkaa kusoo gaadhay waa isku duubnaantiina iyo midnimadiina iyo sida aad uga midaysan tihiin qarankiina jamhuuriyadda somalilan inuu ilaahay subxaanahu watacaala taabageliyo. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ina gaadhsiiyo inaga oo dalkan ictiraaf helay, isla mar ahaantaasina beesha caalamka uu ka mid yahay. waxaa runtii aan maanta rabaa inaan kelimaad kooban aan ka idhaahdo iyadoo wax cusub aanu sheegin, isla mar ahaantaasina wax awalba caado u ahayd inuu ka hadlo oo aan ahayn wax cusub uu sheegay shalay toole xirsi cali xaaji xasan oo ku hadlay magaca xisbiga wadani. waxaan marka u horeysa shacbiga reer somalilan u sheegayaa, isla mar ahaantaasina iyaga laftirkooguba ay garowshiye ka bixiyeen haddii dib aad u daawato baraha bulshada iyo social mediaha ay maanta ummaddu sida fudud ugu xidhiidho sida uga dareen celiyeen wixii shalay toole somalilan guud ahaan ka dhacay ee qarannimada lahaa iyo shirkaagii jaraa'id ee ahaa in aad waxa weeye arrimahaasi ku khalkhal geliso, isla mar ahaantaasina aad ku fashisho, balse ay waxa weeye kuu socon waayey in shacbiga reer jamhuuriyadda somalilan ay aad iyo aad ula yaabeen. waxa aad qabatay shalay shir jaraa'id oo aad kaga hadlayso waxyaalaad badan oo isdhex yaalay oo awalba maalmihii u dambeeyay si xidhiidh aad uga hadlaysay. waxaad ka hadashay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan iyo talada dalka ay haysay wuxuu u qabsoomay. ma rabo inaan dul istaago waxaasi aad ka hadashay iyo wax la mid ah, balse waxaan shacbiga reer somalilan aan rabaa inaan la wadaago shalay oo ahayd maalin shacbiga reer somalilan ku weyn, yar iyo weyn, rag iyo haween, gudo iyo dibad, meel kasta oo ay joogaan. waxa shalay reer somalilan ay isku dareen ka ahaayeen inay muujiyaan qarannimadooda muddada dheer iyo dowladnimadeeda ay ku faaniyeen. qofkii aan nasiib u helin inuu fagaarayaasha jamhuuriyadda somalilan ka qayb galaana uu dareenkiisa ku cabirayo ku muujinayay baraha bulshada ee maanta sida sahalka ah adduunyadu ugu wada xidhiidho, taasoo shalay somalilan uga duwanayd maalmo fara badan oo ay waxa weeye soo mareen. waxaa ayaan darro ah inaad shacbiga reer somalilan aad ka xishoon weyday oo aad la soo hor istaagtay inaad dhaawacdo qarannimadooda iyo niyad wanaagooga iyo midnimadooda ay iskugu soo baxeen ay halka mid ay shalay ay ku ahaayeen. xirsi waxaan shacbiga reer somalilan way xasuusan yihiin aan mar labaad xasuusinaya in uu dalkan 3 xil ka qabtay. 3daa xil 2 ka mida
waxa u magacaabay xisbiga kulmiye oo marna dawladnimada hayay marna xisbi mucaarada ahaa xilkii koobaad waxa uu ahaa inuu xisbiga kulmiye u matalo guddigii doorashooyinka qaranka ee waqtigaasi doorashadii 2010 dhacday guddidii ka horeysay inuu ka mid ahaa oo xisbiga kulmiye u xushay waxaa xusid mudan in xilkaasi aad goor aan hadhna ahayn habeenna aan ahayn aad iska casishay isla mar ahaantaasina shacbiga iyo xukuumaddii markaa jirtay daahir riyaal ay ku war heleen adiga oo bariga burco jooga oo 3 seeraf kurka ka jaray oo waxa weeye halkaasi ku hubaysan hub isla mar ahaantaasina ciidamadii nabadgelyadu ay ka xil guteen oo ay ku soo qabteen adigoo gacanta ku sita bambo kuna jeeray qaaran qori iyo bastoolad waa lagu xidhay oo xukuumaddii waqtigaa jirtay waxay ka xil gudatay oo xabsiga lagu dhigay hay-adaha garsoorkana lagu horgeeyay kadibna damaanad ayaa lagu soo daayay markii xisbiga talada dalka haya ee kulmiye uu dawladnimadii koobaad qabtay waxa uu Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo ku magacaabay ilaahay ha sharfa madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland cimrigiisana Allah dheereeyay wasiirkii wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland xilkaasi oo sidii ku caadada iyo fudaydka ahaydna aad isagana maalin cad aad banaysay isla mar ahaantaasina aad ka haysatay rag sida aad sheegtay aad tiri aniga ayaa ka haystay oo ay u eekayd ama ay ahaydba inqilaab dhicisoobay oo waxa way aragnimada iyo khibrad yaraanta ana dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladnimadiisa aad ka haysato oo aad u haysatay in wax badan ay dhacayaan ama ay dumayaan aad ku fikiraysay balse ay dhacday in madaxweynihii waqtigaasi joogay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo uu si toos ah uga xil gutay kuraastii cid inaga haboon oo qarannimada Soomaaliland ku weyntayna oo hanatana loo magacaabay xilkii saddexaad waxa uu ahaa xilka gudoomiyenimada xisbiga wadani adigoo yiri waxaan xisbiga wadani u soo galay in aan qaato gudoomiyenimada xisbiga oo taana ay maanta ay tahay taad waxa weeye qof mas'uul ah ama gudoomiye xisbi qaran oo jamhuuriyadda Soomaaliland waxuu ku hadlo aanad ku hadlaynin isla mar ahaantaasina ay tahay wax aad iyo aad looga yaaqsoodo hadallada bariyahan u dambeeyay ka soo burqanay waxay isweydiinta shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay markaan ka soo sheekeeyay xilalka iyo sidii salfudaydka ahayd ee aad uga insaxaabtayba goorma ayuu xirsi sidii caadada u ahayd uu ka tagi doonaa gudoomiyenimada xisbiga wadani iyadoo maalmahan qaarkoodna dadka qaarkood ay sheegayeen inaad la wadaagtay maadaama ururadii la furayo kana ma iska casilaa oo urur ma furtaa waxaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegayaa oo la wadaagayaa arrimaha uu shalay ka hadlay waxa kamid ahayd doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland doorasho madaxtooyo inay dalkan ka dhacdo xukuumadda uu maanta hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga talada haya Soomaaliland ee kulmiyaba waxa ka go'an inay waqtigeedii ay ku dhacdo waxa se xusib mudan doorashooyinka aad ka soo sheekaysay ee aad tiri waxa way dib u dhac ayuu xisbiga kulmiye ku keenay xisbiga kulmiye waa xisbiga dalkan ka qabtay 2021 May doorashooyinku isku sidkanaa oo qabsoomi lahaa markii madaxweynaha talada dalka maanta haya uu qabtay talada dalka 4 bilood kadib 2 sano cidii hortaagnay inuu xisbiga wadani ahaa oo dacwad aan sharciga waafaqsanayn ka keenay guddigii waqtiga joogtay guddiga doorashooyinka markii muddo xiloodkoogii dastuuriga ahaa dhamaysteena doorashooyinkii sidiiba ku qabsoomeen hadday doorasho cid hor istaagayso idinka ayaa dalkan ka hortaagnaa xukuumadda maanta mar labaad ka dhalatay xisbiga kulmiye ee madaxweyne Biixina waxay dalkan ka qabatay doorashooyin muddo dhaafay oo waqtigii uu talada dalkan hayay madaxweyne Biixi ka horeeyay oo hadday golo deegaan tahay iyo hadday golo wakiilo tahayba uu madaxweynuhu bixiyay tamaanta beesha caalamka adduunyada ku majiiranayso iyo munaasabadaha qarankeed maalin walba hagardaameynayso ay ku qabsoomeen adduunyadu maanta ku hambalyeynayso ay ka mid tahay waxa kale oo hadalkaaga ku jirtay inaad shalay soo qaadatay aayad quraanka kariimka ah oo suuratu al-imraan ku jirta waxa runtii xusid mudan quraanka kariimka ah
ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kalaamkiisii ama waa hadalkiisii wuxuu adduunka iyo maanta addoommadiisa jooga adduunka korkiisa uu ka mudan yahay xurmo iyo sarraysiin waxana ilaahay wax laga magan gala ah inaad aayad qur'aana oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwuu ku soo dejiyey iyo kuwuu kaga hadlayey aad tafsiirkeega aad qaladay waxaanse kuu sheegaya aayaddaasi iyo munaafiqiinta ay tilmaamayso iyo kuwa ku faraxsan waxayna samaynayn ay tilmaamayso inka koobaad ee ku sifoobay aad tahay waxay tilmaamaysaa in kuwa markay wax khiyaamaan ama ummadda wax u sheegaan ku faraxsan waxay sameeyeen waxaan ka soo sheekeeyey tallaabooyinkii aad qaaday ee xisbiga kulmiya kugu aaminay ee madaxweyne siiraaye kugu aaminay ee intaba aad khiyaamaysay ee intaba markii dambe aad ku faraxday miyana aayaddaasi ku haysan bal dib isku daawo waxaanay noo garsoori doonaa mashaayikhda dalka oo tafsiirkeega eegi doona bal cidda ay koobaad ay tilmaamayso kuwa maanta dalkan laga hortaagan yahay waxa ay ku fikirayaanna somalilan iyo meel lamida aanay ka suurtagelaynin ee takfiiriga ah waxaanse kuu sheegaynaa adiga iyo kuwa kula midkaaba dalkan somalilan in lagaa qaban doono waa lagaa qabanayaa maalin yawmun min alayaam xirsoo ku talagal in lagaa qaban doono ood sharciga aad hor istaagi doonto waa lala socdaa waxa aad ku fikirayso iyo waxa aad ku waxa weeye taamaysaba hadday tahay somalilan madaxdeeda iyo adduunyada hadday tahayba waxaad ka qoran tahay waad ogta waxa aan shacbiga jamhuuriyadda somalilan guud ahaan aan halkan maanta uga gudbinayaa lana wadaagayaa iyaga oo shacbiga jamhuuriyadda somalilan ay yihiin maanta dad ilbax ah qarankooga somalilan iyo wuxuu usoo qabsoomay ka dharagsan aanu qaldi karin qof ujeedooyin gaara leh oo kursi ku cararayay in doorashooyinka jamhuuriyadda somalilan ee kala duwan ay noogu qabsoomayaan siday u kala horeeyaan qaanuunka dalkuna u waajibinayo maanta waxa shacbiga jamhuuriyadda somalilan uu la socdaa in muddaxileedkii saddexda xisbi qaran ee muddaysnaa 10 sanaba hal mar in la furo sida waxa weeye aynu marar badanba ee saddexda xisbi qaran dalkan halkaa ku soo gaadheen in waqti koobani uu ka hadhay waxaan shacbiga jamhuuriyadda somalilan la wadaagayaa iyadoo ixtiraamayno xisbi ahaan aanaan gudagelayna waxa weeye qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahaa ee ka soo baxay in saddexda xisbi qaran ee maanta dalka jooga ee kulmiye iyo ucid iyo wadani iyo waqtiga qaanuunku furaya ururada la furo ee inay u borotamaan u ordaan qaanuunku waajibiyo saddexda xisbi qaran ee ka soo baxa ayaa u tartami doona doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan taana shacbiga jamhuuriyadda somalilan ee sida indhala-aanta uu shalay xirsi rabay inuu u majara habaabiyo ayaan iyagana u sheegayaa baaqii shalay iyo maanta istabajooga ahaa ee shacbiga jamhuuriyadda somalilan ay dareenkooga ku muujinayeen haddaad tihiin xisbiga wadani wax allaaliya waxaad ku darsateeni ma jirto balse waxa ayaan darro weyn ah inaad ka xishoon weydaan dareenkoogii iyo qarannimadoodii iyo siday adduunyada ugu muujinayeen inaad ka khalkhalgelisaan oo adiguna shalay toole aad shir jaraa'id ka qabatay fariin kalena aad u dhiibtay afhayeenkaagii xisbiga oo shacbiga jamhuuriyadda iyo caasimadda ku dhaqan si uga soo khalkhalgeliyo uu fagaaraha khayriyadda ugaga cataabay fariimihii aad soo fartay balse waxaan dil iyo sharaf darre aan ahayn oo aad ka qaadeenna ma jirto intii shalay shacbiga jamhuuriyadda somalilan hadday halkaa ku sugnaayeen iyo hadday baraha bulshada fikirkoogii qarannimada xambaarsanay inigu jawaabayeen haddaad dib u eegtaan intaasi ayaa inigaga filan waxaan shacbiga jamhuuriyadda somalilan gees ilaa gees ku bogaadinayaa sida ay mar kaste u difaacanayaan qarannimadooda iyo wada jirkooga iyo wada joogooga dalka jamhuuriyadda somalilan waxa aad kelmada ka tiri marka madaxweynuhu khudbadaha uu ka jeedinayo goobaha uu waxa weeye ama munaasibaadka qaran ama meelaha uu booqdo madaxweynuhu kelmadaha uu ka yidhaahdo inaad shalay toole iyadana ereyo gaf ah oo qof mas-uulah oo xil guddoomiye xisbi haya uu ku hadlana aanad shalay toole ku hadlaynin waxaan kuu sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan inuu yahay madaxweyne cabqariya
waaya araga siyaasiya isla mar ahaantaasina yaqaana goob kasta iyo fagaaro kasta hadalka yaalla ee kaga habboon xaasha halkan nidaam iyo brotocool iyo haybad dowladnimo ayaa taalla taana intaas ayaan ka odhan lahaa aad iyo aad baad umahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka u horeysa ilaahay baa subxaanahu watacaala ay u sugnaatay mahadnaq iyo sharaf waxaan mar labaad aniga oo ku hadlaya afka xisbiga talada dalka haya ee kulmiye aan halkan uga mahadnaqayaa isla mar ahaantaasina aan bogaadinayaa guud ahaan shacbiga jamhuuriyadda somalilan oo 22kii bishii koobaad 2022 oo shalay ahayd iskugu soo baxay dhammaan fagaarayaasha waaweyn ee gobolada dalka jamhuuriyadda somalilan kulamadaasi iyo isku soo baxyadaasi oo si xidhiidhana ilaa saaka uga socday gobolada qaarkood oo si weyn dadku isku abaabuleen marka u horeysa shacbiga jamhuuriyadda somalilan waanu ku tahniyadeynaynaa dareenkoogii qarannimada lahaa ee xambaarsanaa sida ay uga go-an tahay in qarankan jamhuuriyadda somalilan ee muddada dheer ku naaloonaya madax banaanida iyo dowladnimada taabada gashay in ay beesha caalamka iyaguna codkooga ku biiriyaan in waxa weeye xaqii ay ku lahaayeen inay ictiraaf caalami helaan waxa kaloo shacbiga jamhuuriyadda somalilan ay fariintaasi shalay ilaa maanta ay gudbinayeen ee xambaarsanayd isla mar ahaantaasina ay ku taageerayeen baarlamaanka dalka UK oo waxa weeye dood ka galay qiimo leh oo kuna soo bandhigay halkaasi muddada 30 sano ah qaranka jamhuuriyadda somalilan wixii u qabsoomay in beesha caalamku iyo adduunyada ay garowshiye ka bixiso annaguna xisbi ahaan waanu tahniyadeynaynaa waxaana leenahay shacbiga reer somalilan waxa qarankani halkaa ku soo gaadhay waa isku duubnaantiina iyo midnimadiina iyo sida aad uga midaysan tihiin qarankiina jamhuuriyadda somalilan inuu ilaahay subxaanahu watacaala taabageliyo ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ina gaadhsiiyo inaga oo dalkan ictiraaf helay isla mar ahaantaasina beesha caalamka uu ka mid yahay waxaa runtii aan maanta rabaa inaan kalimaad kooban aan ka idhaahdo iyadoo wax cusub aanu sheegin isla mar ahaantaasina wax awalba caado u ahayd inuu ka hadlo oo aan ahayn wax cusub uu sheegay shalay toole xirsi cali xaaji xasan oo ku hadlay magaca xisbiga wadani waxaan marka u horeysa shacbiga reer somalilan u sheegayaa isla mar ahaantaasina iyaga laftirkooguba ay garowshiye ka bixiyeen haddii dib aad u daawato baraha bulshada iyo social mediaha ay maanta ummaddu sida fudud ugu xidhiidho sida uga dareen celiyeen wixii shalay toole somalilan guud ahaan ka dhacay ee qarannimada lahaa iyo shirkaagii jaraa'id ee ahaa in aad waxa weeye arrimahaasi ku khalkhal geliso isla mar ahaantaasina aad ku fashisho balse ay waxa weeye